qaar ka mid ah culimada diinka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa maanta waxay baaq nabadeed u direen beelo walaala oo dirir ku dhexmartay deegaanada Bagacley ee koonfurta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ugu horeyntii masaajidka weyn ee Arooda ka hadlay Sheekh Maxamuud Yuusuf Dhuux oo ka mid ah culimada diinka waaweyn ee magaalada Buuhoodle anigoo ku hadlayna culimada diinka gobolka Cayn waxaan baaq nabadeed oo islaamnimo oo ehelnimo u soo jeedinaynaa meelaha dirirta foosha xun ee soo noqnoqotay ee macna darrada ay ku dhex martay goobaha la kala yidhaahdo deegaamada Bagacley iyo Qorile waxaan leenahay dadka halkaas jooga oo ehelka iyaga oo qaraabadayada oo walaalaha iyaga oo joojiya dagaalka joojiya islaamnimo ku joojiya ehelnimada ku joojiya qaraabnimada ku joojiya derisnimada ku joojiya intaba waa ku xaaraan dhiigga daadanaya xaaraan weeyo iyo dulmi maalin aad maanta ka lidataan baa qof walba lagu weydiinayaa laguna ciqaabayaa dagaalka hala joojiya shuruud la-aan dagaalka hala joojiya waana la isugu imaanayaa insha allah in carabka ku xun yahay culamada iyo cuqaasha iyo codkarka iyo tilmada iyo haweenka iyo caruurta qaylinaya carabkood inuu xabad kasta ka xun yahay ogaada ilaahay ka cabsada naftiinana u tulo oo wax ku fara dagaalka hala joojiya si shuruud la-aana waxaan kale oo baaq kale u diraynaa culimada diinka kala jooga gobolada kala duwan ee ay khusayso beelaha halka ku diriraya gobolka Bari Karkaar Sanaag Sool Cayn Mudug Nugaal inay ay ka soo qayb galaan culimada gobolada kala joogta waxaa iyaguna sidoo kale halka ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradkii iyo culimada diinkii oo baaq nabadeed si wada jir ah ugu diray jeedinayna baaq nabadeed wuxuu ku wajahan yahay dhammaan ummadda muslimiinta meel ay joogaanba inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo islaaxa iyo isu soo dhaweynta dadka muslimiinta gaar ahaan waxaanu baaqa ku wajahaynaa dadka muslimiinta ee walaalaha ee deriska ah ee isku noosha ah ee xidid iyo xigaalba ah ee riximka ah ee oodwadaagta ah ee fitantaas shaydaanka iyo sharwadayaashu ay kiciyeen ay ka dhex taagan tahay dhiigooduna xaqdarro ku daadanayo iyaguna gacmahooda ay ku kasbadeen cadaabka ay ku kasbadeen dadkaas waxaanu ugu baaqaynaa inay si degdega ku joojiyaan dirirta iyo dagaalka xaqdarrada ee ay wadaan halka xabadda ka socota aad iyo aad baan uga xunnahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca gobolka Cayn cuqaasha magaceeda reer Buuhoodle iyo dadweynahaba anigoo magacooda ku hadlaya waxaan baaq nabadeed u soo jeedinaynaa beelaha ku dagaalamaya magaalada Qorile iyo Bagacley beelahaas oo beelo walaala ah oo aan loo baahnayn xabad inay dhexdooda ka dhacdo waxaanu leenahay hala joojiya xabadda baaqaasaanu la qabnaa haddaanu nahay gobolka Cayn baaqa baxaya ee culimada iyo cuqaasha iyo wax kasta ka hadlayaan wacdigoodii la sheegay kaasaanu la qabnaa aanu taageersanahay waxaanu ummadda uga baahannahay wixii islaam ee maqlaya la dagaalka inay qayb ka qaataan inay islaamnimo isugu taagaan sidii lagu joojin lahaa af iyo adibba in la qaabilo waanu u baahannahay Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle.